السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودنبالكيني تضبي طبناد دنبالدينا نفتادنا حقله دنبالكن حين بحني حوب سيبشو حوب يسيبشو واريو فضد أنو باهنين إلا سيفسرو maskaasuu xubsiibta haddii la yidhaah micnaheedu waxa weyaan galkiisii hore ama diirkiisii iyo maqaarkiisii horuu ka siibtay oo mid cusub ayuu waxweyaan la soo baxay sidaas leeg maadaama aynu ku jirno maalmo fadli iyo sharaf badan oo ilaahay subxaana watacaala inagu galnaday wax fara badan baynu u baahannahay inaynu ka xubsiibano hadday fikirkeenna tahay iyo hadday aragtiyaheenna tahay iyo hadday qaabdacooyinkeenii hore tahay iyo hadday qalbigeenniyo xaaladiisii hore ee 12 bilood ee hore ku sugnaa ay tahay ka raali ahaada codkaygu hadduuna si fiican idiin soo gaadhaynin sababtoo waan hargabsanahay marka hadbaan idinka raali gelinaya xubsiibasho ereygan sababta aan u isticmaalay wax weeyaan marar fara badan markay ramadaanta tahay ama xilliyo badan oo inagu si gaara aynu u ducaysanayno nafteennu waxay dareentaa in aynaan siday ahayd ducadeennu iyo ilaah baryideennu sidii aynu rabnay inaynu u dareenno oo qalbigeenna iyo ruuxdeenna iyo gudaheenna meesha ugu fog inay ka soo godo inayna uga soo gayn waxyaabaha caawiya inuu ruuxu ducadiisa dareemo oo qalbigiisa iyo ruuxdiisa ay ka soo go'do oo baahiyihiisa iyo baylahdiisa si dhab ah ay uga turjunto waxaa ka mid ah inuu awoodihiisa shakhsiga iyo taytaladiisa iyo qofku isu arko iyo sawirku iska haysto iyo fahamku nafsiyadiisa ka haysto in uu iska siibo markuu ilaahay subxaana watacaala gacmaha u taagayo baryayo wax kastoo aad isu taqaanid iyo wax kastoo aad u malaynaysa inaad tahay inaad ka xubsiibataahi waxay kaa caawinaysaa inay ducadaadu adigana dhadhan ku yeelato ilaahay agtiisa subxaanahu watacaalana ay qiimo ka yeelato oo addoonnimo dhammaystiran rabbiga subxaanahu watacaala uu ka arko xubsiibashada waxaa ka mid ah inaad xustid baylahdaada iyo dayacaaga iyo gaabintaad gaabinaysid iyo dulinimadaada adoo ka horgeynaya ama u bandhigaya ilaahay weynidiisa iyo cizigiisa iyo hayntiisa iyo sharaftiisa iyo wanaagiisa iyo khinagiisa hodantinimadiisa adoo hordhigaya waa laba shay iska soo horjeeda taadaad ka xubsiibanaysaa taa ilaahay baad markaa aad u tacarudaysaa amba aad hoos joogtayood u bandhigaysaa baahiyahaagii waxay caawisaa inay ducadaadu maqaam iyo macno yeelato oo waxaweyaan sida ugu quman ilaahay subxaanahu watacaala ugu tagto adigana ay laabtaada uga soo go'do in badan waxaa inugu maran oo maankeenna iyo maskaxdeenna ku maran waxaa saamay suurtoobi waayaan waxaynu eegaynaa sababaha ku xeeran ama inugu gadaaman boqolka weji suurtagal la'aanta u ah aynunayna waxaan amay suurtageli waayaan amayna macquul ahayn intrusive thoughts ayaa inugu soo dhacaya afkaaro tabanoo intrusive thoughts ah ayaa inugu soo dhacayo inugula waxaan amay suurtageli waayaan amaysaa noqota amay ka noqota amaynaysaa ahayn cod hoose meel inagaga niqaaban baa jira kaasi wuxuu tashuush ku furaya markaa ducada macnaheedii iyo maqaamkeedii inay naftaadana si dhab ah uga soo go'do kaana turjunto oo baahiyahaaga ay ka turjunto waxaa jihaad kala ah oo ajar iyo darajaad aad ku helaysaa in isla xilliga aad ducaysanaysa minidka ay ducadu afkaaga ka soo baxaysa at the same timena inaad cadaadis kala hortagtid afkaarahaas taban ee negatifeka ee naftaada kuu sheegayso ama ay kugu baqagelinayaan duruufaha markaa kugu xeeran ee ay ku leedahay naftu ila shaydaanka iyadaa ka daran marar fara badan waxaana suurtagal maaha waxyaabaha lagu barxo ee lagu burburiyo afkaaraha taban ee negatifeka ee naftu kuu sheegayso ee rajo la'aanta ee suurtagalnimo la'aanta kaaga sheekeynaya waxaa kamid ah awoodaha ilaahay inaad xustid subxaanahu watacaala weynidiisa inaad xustid mar walba aad ku celcelisid isdhuldhig inaad la timaadid ilaahay inaad ammaantid oo siduu
isagu isu ammaanayaad u ammaantay subxaanahu watacaala intaa sifaadkiisa ka taqaana carabkaagu soo qabanayana inaad ducadaada ku ledhid ood ku baritaartid ood kor ugu qaatid yani qisadii nabiyullaahi zakariya isagoo oday weyna oo 80 kor u dhaafay oo laf waliba ay daashay oo madaxiisii uu xiraystay sidii uu yahay markuu isagu sharaxayo ducadiisa uu ku sharaxayo kaanama intay dhuxul baxday bastay inay tahay oo madaxiisa uu basay oo sidaa ay dhuxushu u basto amba dambasku inuu ku muuqday madowgeedii iyo midabkeedii uu luus garayso markay baxday caddaato si leeg inuu gabowgu inta ka batay tin madow laga waayay madaxiisii laf kasta iyo muruq kasta iyo xubin kastoo jirkiisu ay daashay oo iga daaleenba inay sidaan lafahayga inay iga daaleen markuu sifaynayo uu rabbigiisa la hadlay yani afkaaraha taban ee negatifeka ee waxaana suurtagal maaha waxaana wax dhici karaya maaha bal intaad leegtahay dee bal cumrigaad joogtaday bal xaaladaad ku jirtaday bal halkaad joogta sidee waxaana suurtagal u yihiin kule keli kuma nihin bani aadam haddaynu nahay maanta waxay muslimiin nool ambiyadii ay noogu horeysay id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya nidaagu waa codka dheer marka lagu hadlo laba erayoo lidii isku haba aayadda ku jira nidaa iyo khafi sidee codku una dheeraan karaa at the same timena u gaabnaan karaya cod hoose u noqon kara xanshashaq u noqon kara almost siduuse u dheeraan kara oo yeedhmo u noqon karaya waxay ku tusaysaa bay culimmadu yidhaahaan dareemada يعني xishoodka iyo baqaha ay naftu ugu sheekeynaysay iyo ama waxaas suurtagal ahaan waayaan xishoodku ilaahay ka xishoonayo isleeyahay ama ducadani maaragtay ayna ahayn tii munaasibka ahayd at the same time meesha fog ee baahidiisa ay kasoo go-aysay nidaa'an khafiya ibaal iyo baqo iyo suurtagalnimo la-aanta caalamkan xisigaa la dareemayo dabadda ka jiraan 9 jira maanta aan xoognahayn muruqnahayn waxa weeyaan isagii gaboobay haddana ilma doonaya marka la eego society-ga iyo bulshada dhexdeeda wax qariiba oo maaragtay la qariibsanayo amba lala yaabayo haddana naftiisii iyo gudihiisii iyo rajadiisii iyo iimaanku ilaahay ku qabay subxaanahu watacaala ayaa ka xoog weynaatay فواكن بربرينية ميل فوق عدكيسي ككينية مركو دبدو صوبح على إلهي سبحانه وتعالى لفقه احتراما يشرف له شرفيا إذ نادى ربه نداء خفية بقول شير بالغو قد قبرتيني وحا سورة قلمها وحا سمدعي كريان وديوين باطي مانتا قبل وينو دلمديسات تحي اللهم صل على محمد وحان ما هيسن كرتيد حالكايد ككيني صداو سورة كري هبل ما هيستو يد ما هيستو هادر ما هيستو عدد هذا شما جرتو بانجياد مكو مفرنوها كاركوك مصر دعي كراحة بقول وحبين ناس هذا كل شيء سامرك وحادوني ساس غادي إلهي كبري مركا ويناد حلقة ugu dambaysay maskaxdaadii garashadaadii ogaalkaaga aad ka soo saartaa dareen dhab ah oo waxaasoo dhan aad ku burburinayso oo awoodda ilaahay subxaanahu watacaala aad ku qiraysid si waxaan oo dhan ay meesha uga saarto at the same time waxaan oo dhan ku culaysanaya mayada miidhana ee negatifeka ee gudahaaga ku jira ee kaa hor istaagaya ducadaada inaad voice garayso ama aad ilaahay hor dhigto waa inaad kor u tiraha in badan kabasho waxaan kusoo hadalnaa ama aan kusoo qaadanaa fikraddu tabanee negatifeka ahi intay dhexdaada ku filaqsan tahay bay awood kugu leedahay maalintaad dabadda soo saarto awooddeedii way beeraysaa subxaanallah laa quwata illaa billah ducada markaad ilaahay baraysid subxaanahu watacaala lama doonayo waxyaabaha negatifeka ah adiga suurtagalnimo la-aanta kuula muuqda inay gudahaaga ku sii jiraan inaad voice garaysad soo saartaa ilaahay u sheegtaa قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال ربي وحول ربي جيو إني وهن العظم مني إله الله في بائقة جلعي وهن ويدالين ويتحدقين أمر بين نقدين يعني أود درالك قدام بيسيبي قاعدين nin yaro dhalinyaraho xoog weyno murqa kuskuusano himadiisa joogto oo waxa weeyaan allahumma salli ala maxamed spam countkiisu 100% yahay oo maanta waxa weeyaan ma
إني وأنا العظم oday weyn oo gaboobay oo lafihii ka daaleen kaalama intay lafihii u tashteenay yani cidaam waa lafaha markay badan yihiin cadamna waa mar keliya kaanama inay kulligood urureenoo aydan odaygan maba qaadi karnayna ka dhiga halka heerkaasan maraya. That's the reality. waa fikradaha laabtayda iyo gudahayga ku jira igu leh Zakariya waxba ma dhalkarisid maanta maba joogta xilli waad wax ku dhashid waxana alcadmu minni lafahaygii baaba ii tashtay oo iga gaboobay oo iga daalay oo isidi karila washtacala alra'su shayba timahaygiina madaxaygina wuu basay cirro halkii u dambaysay khalaas walam akun saasoy tahayna maan ahaan mid biducaa'ika ducadaada iyo baryadaada rabbiyo shaqiyan kumaan hoogin nafd waxaasoo fikrad iyadoo jiraan oo socially dabadeyda iyo xaaladahayga iyo duruufahayga markan eego ay xaaladdu saa tahay oo lafihii iga daalan oo timihii iga baseen haddana fikradahaas iyo realitieska iyo xaqiiqooyinka gudahayga iyo dushayda iyo jirhkayga iyo duudkayga ku meersan waxaan ku burburinayaa xaqiiqada jirta ee ah inaanan ducadaada marnaba ku hoogin horaan waan kuu baryay kuma hoogin which means tanna waxaan minsanahay inaanan ku hoogin inaanan ku hoogin fa mar kasta oo ay fikraduhu kugu soo dhacaan waxaan suurtagal maaha dhali maysid ma haysatid ma helaysid kuu biiri maysa lacagtani businesskani ma guulaysanayo ilmahani ma hagaagayo gurigana guri ka weyn ma helisid waxaa la yidhaha qur-aankan ma xifdiyi karaysid allahuma salli ala maxamed xaaladan iyo caafimaadkan xaaladanaad ku jirto caafimaad ma hagaagayso xanuunkan kama bogsanaysid halkaa ma tegi karaysid waxaa ma heli karaysid nin wanaagsanna baxaas wanaagsanna meel ma wanaagsan ma heli karaysid allahuma salli ala sayidina maxamed qofka doonaysa ma noqon karaysid koorskan ma baas karaysid wixii weyna dabadda u soo saartay markaad la hadlaysid waxaas yidhaahw leedahay nafsadaydii iyo gudahaygii mid inaad u soo saartid maxaa la yidhaha intrusive thoughtskaagii afkaarahaagii tabnaa ood ku burburisid walam akun biducaa'ika rabbii shaqiya iyadoo waxaasoo dhan naftu ay leedahay oo realitieska ay leeyihiin iyo xaqiiqada igu meersan ay leedahay intaasoo daaqadoodoo dabadda iga muuqda ay xidhan yihiin haddana marnaba kumaan hungoobin ama kumaan hooyin ama kumaan guuldaraysanin ama gacmo maran kaalaman soo noqon marnaba baryadaada rabbiyo kuman hoogin waa nasf waxay meesha ka saaraysaa way nafyinaysaa way burburinaysaa wixii oo dhan ka kacbay ka dhigaysaa fikradihiibay barxaysaa fikradahaagan taban baad u baahantay inaad barxdid suurtagalnimo la-aantan kuu muuqata ayaad u baahantay inaad ku baraxdid walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya fa ducadeena saan u darayno qiimaheeda way gudaheena si dhab ah uga turjunto waa inaanu fahamsannahay yani realitieskeen iyo xaqaa'iqdan iyo maaragtay noloshan dabaddeenu noolahay siday u saamaynayso ay ducadeena u kala dhimayso afkaaraha inagu soo dhacay waynan ognahay oo intaan lis garayno aan ilaahay u sheegno waxaasay naftu leedahay waxaasaa in muuqda mar kastoon ducada ka fikiraan rabbina waxaa ku weydiisto waxaasaa igu soo dhacaya walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya saasay tahayna marnaba kumaan hoogin tanna igu hoojin maysid igu hoojin maysid markaasuu sii sharaxayaa wa innii khiftu almawaaliya min waraa'i qoomkaygan iyo dadkan maaragtay ay iga dambeeya ayaan ciribtay maaragtay markaan ka tagin ka dhintan u baqaya wa kaanat imraatii caaqira xaaskaygiina waxa weeyaan gabadhaanan waxba dhalin aqriga culimadu waxay ku fasiraan waxay dhahaan waxaa laga yaabaa xaaskiisaas markay yarayd inuu nabar soo gaadhay nabarkaasoo keenay in maaragtay ama makaankeedu wax noqdo ama maaragtay fertilitygeeda wax u dhimay ama si guud inanay xaaskaasi maaragtay ay fertility issues ay haysoona waxba dhalin already ilaahay wuxuu ogyahay subxaana watacaala haddana wuxuu u sheegayaa xaqiiqadan realityga ee jirtay naftiisu ay u sheegaysa leeda waxaan suurtagal maaha adiguna oday gaboobi baa tahay murqahaagiiyo lafahaagiiba way kaa daaleen nin yar ma tihid dhalla warkeeda daa gabadhaadina waaba gabadh maaragtay aynu waxba dhalayn haddana muxuu ku xigsiiyey kaanat imraati caaqira fahablii min ladunka waliya ilaah waxaad ii hibayso disiisa alhiba iyo cadaagu way kala duwan yihiin cadaagu inuu shay lagu siiyo waa ina sometimes sacyi buu kaaga baahan yahay dadaal buu kaaga baahan yahay dhakhtarna tagtuu kaaga baahan yahay halkan aad ka wareegtuu kaaga baahan yahay laakiin hibada waxaa la yidhaahaa shayga markuu ilaahay subxaana watacaala si gaara kugu gallado sometimes
aan yani asbaabtiisa u dhaxaysa halka ka imanaysayo saci farbadan inuu kaaga baahnayna si khaasa rabbi uu kugu hibeeya la yidhaha hiba way ka qiimo badan tahay cadaaga fahabli sababtaas muhiim tahay markaad ilaahay baryaysid inaad magaysa alwahaab aad ku baridid fahabli min ladunka waliya agtaada waxaad iga siisaa rabbiyow waliya yani adigu iisoo hibay waxaan oo dhan oo realitisa oo jirkayga hadday noqoto iyo dareenkayga hadday noqoto iyo bulshadan la nool hadday noqoto iyo xaaskayga hadday noqoto iyo xaaladahan oo dhan kulli ii sheegaya inay negativeka yihiin hibadaada rabbi igu baraxo meesha kaga saar oo ilmaysi adugu markaasuu wuxuu sii sharaxayaa ilmaha wuxuu ku falaya yarithunii wa yarithu min aali yacquuba wajcalhu rabbi radiya suu anigana ii dhaxlo reer aali yacquubna u dhaxlo ijcalhu rabbi radiya ilaahu mid adigana ku raaligeliya ku raaliya wax kastood siiso anigay raaligeliya radiya ka dhig right tusaysaa markaad ilaahay la hadlaysid inaanad u baahnayn inaad ducooyinka yar intaad iska qaybtid 4 midh aad iska tirtiraahid waxaasaad meel ka akhridayuune waa inay si dhab ah oo xeel dheer ay uga turjumayaan baahiyahaaga waxaanaad doonayso meelaha ay kaa kafeynayaan meelaha ay kaa gufeynayaan dulallada ay kaa gufeynayaan meelaha ay waxaasi kaaga beegmayaan helistooda yacni in aanad waxba la kala harin markaad ilaahay baraysid ilaahu waxaaysi sida iyo sida ay saahay anfacaan halkaa haygaga filaadaan halkaa haygaga beegmaan waxaasan dareemayaa waxaase realitiga igu leedahay waxaasa igu soo dhacaya waxaa iga buri waxaas iyagoo jiraan ii muuqdaan haddana kumaanan hoogin mar keliya ducaan adiga kuu ducaysteen baan ku weydiistay tanna haygu hoojinin fahabli min ladunka waliya anta alwahaab ay ka dhigantahay islaam baa waxaa laga soo wariyaa ama afarka ku sugan marka ilaahay baryaysa baa layidhi waxay odhan jirtay yaa man laysa binaa'imin fa uuqiduh walaa bigaafilin fa unabbihuh walaa bicaajilin fa umahilah walaa bimusaafirin fa antadirah walaa bijaahilin fa ucallimah yaa caaliman biljumla yaa caaliman بالجملة يا غنيا عن التفاصيل كفى علمك بالمقادير انقطع الرجاء إلا منك أغلقت الأبواب إلا بابك وخابت الظنون إلا فيك يا من ليس بنائم فأوقظه إله آنا هردن إله ما هردد وما باردنا كتوسي ولا بغافل فأنبهه ما مقند وما باردنا كسوج جيديو مقناشي حوية مركو قف بسلم مقيس لبراد لا إله براد لا متيدو غافرة وما باهنيدنا كسوج شيديو ولا بعاجل فأمهله ما يلا كوما دقدقي سيدو يسوق كوما ورني إله وحني أنا قرطاي دافن كوما ورني سبحان الله ولا بمسافر فأنتظره إله ما مقندو سفر كوما مقندو كوما سوقي حافيز كستا عدة دوكا باهناي تاي ما قنتهاي سوق بالغورنيا أما بري بالفريا سنين تالا فريا كسون نقو تلفون كوما انتو مشغول ولا بمسافر فأنتظره إلهي يصفركم ما مقندو كما سوغينا سفرك كسون نقطو ولا بجاهل فوعلمه جهل يا أقون دركاغا مسوغ نيد باهيدايدا oo kuma barayo marar badan yani sida dabiiciga bani aadamka markaad wax uga baahato waa inaad u sharaxdo waxaad u baahan tahay waxaasan u baahanaysaa isaasaan uga baahanay arrintaasay haysata warqadanaan haystaa halkaasaan kala yimi maalintaasan halkaas soo maray qoradan u tagay igu tiri وين qofku waa jaahil wayna dibartaa waxaad u baahan tahay xaaladaada aad maaragtay familiar kaga dhigtid yaa caaliman biljumla ilaaha og ee u aqoonta leh xaaladuhu iyo umuruhu iyo waxaan u baahanahay iyagoo jumlada oo isku dhafan oon u baahnayn loo kala qaado yaa ghaniyan can tafaasiil ilaaha ghaniga ka ah ee hodanka ka ah ogaalkiisa iyo aqoontiisa ay xaadaysay wax walba ee aan u baahnayn inaan u kala qaado qaybtanaasaan halkan ay soo martay keyskan intaasoo meelood buu soo maray maxkamadda hoos u tegay tan dhex uu soo maray tan sarwimka maraya intaasoo lawyer baan arkay baristarkaan arkay halkan ay ka soo baxday qoladaasaan la xidhiidhay wakaaladda ay soo gudbisay halkan ay ka timid ee tana sida yaa ghaniyan can tafaasiil ilaa waxaad qani ka tahay inaan wax kuu kala qaado kafaa cilmuka bilmaqaadiir aqoontaada oo dhani waxay kafaysay wax walo ilaahay qadaray iyo say u qadaran yihiin say u qaybsan yihiin ayuu ogyahay انقطع الرجاء إلا منك إلهو رجديدي إيو
maxaa la yidhaahayey yani inaan rajeeyo ama cid kale aan wax ka sugo albaab kastoon cid kale ka rajeynay uu iga soo go'ay oo aan ku soo hungoobay albaabkaaga mooyaane uqliqat alabwaabu ilaa baabak albaabadii kaloo dhan way iga soo xidhmeen albaabkaaga mooyaane wakhaabat aldunuunu ilaa fiik yani dunuuntu malag kasta oon lahaa waan ku soo hungoobay kan adiga kugu qaba mooyaane يا من ليس بنائم فأوقظه ولا بغافل فأنبهه ولا بعاجل فأمهله ولا بمسافر فأنتظره ولا بجاهل فأعلمه يا عالما بالجملة يا غنيا عن التفاصيل كفى علمك بالمقادير انقطع الرجاء إلا منك وأغلقت الأبواب إلا بابك وخابت الظنون إلا فيك وإنسانك مركو الدعاء سدريميو awoodda ciduu la hadlaya uu ogyahay baahiyihiisa isagoo warqabo afkaartiisa tabane kusoo dhacaysa uu ogyahay ku badxaya awoodda ilaahay ogaalka u leeyahay iyo safaadkiisa hadraawina waa kii ku lahaayeen maansadiisii dabahuwan qayb ka mid waa kii ku lahaa markuu ilaahay subxaana watacaala awooddiisa sheegayo iyo bani aadamka jilaaciisa astaamaha dowladnimo markay darajiyo run tahay adaan cidi kaaga dayan in daalacan baad taqaan intii dadan baad og tahay horaysana waad digtaa dambaysana waad sugtaa intii daran baad kartaa in dooro rabbaad u tahay dullaynna adaa ku filan daryeella adaa ku faxan sidaa damacdaaba fudud dardaarwarintaada guud adaa naxariis ku daray danina boqor baad ka tahay dayrana hodan baad ka tahay dembina dhaafaad u tahay dulqaadna allaad u tahay baryana deeqlaad u tahay adaan tale kaa degdegin doraato wax ku ekaa adaan dib u qoomamayn adoo isla doonay laba adaan midi kaa durkayn adaan waxba kaa dib jirin adaan damac fuushanayn adaan waxba daba ordayn aday dani kuu dhan tahay subxaan allah adaan xaggaldaac lahayn wixii hadhay baa dalagan daalaadhacu waa wastaan waxaa doqonnimo badan intuu dadba kow ka yahay waxaan dalab waayi karin intuu duray hoog ku yahay hadduu dibqallooci yar yahay naftuu damqayaan isbixin insaanku markuu ilaahaysa la hadlayo subxaanahu watacaala waxa roon inuu la hadlo qaab uu sifaadkiisa dhabta ah ee uu ku bartay dhadhansan karayo doraato wax ku ekaa adaan dib u qoomamayn subxaan allah waa sifo aad iyo aad cajiib u ah ilaahay mooya cid kale aanay lahayn bani aadamku wax kasta oo aad shalay toole ka procrastinate garayso ood iska dhigatood meel ka fadhiisato bad lama waxaa sameeya maysaa noqoto adoo isla doonay laba adaan midi kaa durkayn ilaahay wuxuu isla doono cidina ma kala durkin karayso adaan waxba kaa dib jirin adaan damac fuushanayn adaan waxba daba ordayn waa sheekada islaamtan oo kale marka ilaahay baraysa subxaana watacaala walaa bimusaafirin faantadiru walaa bijaahilin fawcallima yaa caaliman biljumla yaa ghaniyan can التفاصيل kafaa cilmuka bilmaqaadiir yani nebi zakariya markuu leeyahay wamaa kuntu biducaa'ika rabbi shaqiya walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahow tafaasiisha wax kasta oo aan kaaga baahday horayto marnaba kumaan hungoobin oo kumaan hoogin oo kaamaan waayin si kasta oo xaaladayda dabadeed ay u leedahay oday weyn baa tahay oo timihii baa ku basay oo lafihii baa kaa jilcahay oo murqahii warkooda daayo gabadhaadii waa taas waxba ma dhalayso oo xaaladdu markan dabadda ka eego ay raja la'aan u tahay haddana lam akun biducaa'ika rabbi shaqiya xuubsiibashadu keliya maaha inaad afkaartaadan tabane negativeka aad ka xuubsiibato inaad sometimes markaad ilaahay la baryayso maaha sometimes all the time inaad ka xubsiibataa realitieska iyo xaqaa'iqda dabadaada ka jirta ee kugu hareeraysan ood u xubsiibataa suurtagalnimada wax kasta maadaama ilaahay suurtagal yihiin musabbib alasbaab kun fayakuun arrintiisu kun bay u odhanayaan fayakuun arrinku sidiisiibuu noqonaya famiisaankaaga mar walba waa inay awoodda ilaahay iyo kartidiisa inay waxaan uu karayo ilaahay ay ka weynaataa oy kor ka noqotaa afkaartaada tabane negativeka iyo realitieskaga dabadaada ka jiray waaqicaagan
rajo la'aanta kugu ridaya iyo waxaan ma suurta galayaan iyo codadkay dadku kugu odhanayaan iyo waraaqaha dhakhaatiirta kasoo qaadatay iyo inta jeeraad hungowday iyo inta jeeraad cidla kusoo dhacday dhacdooyinkaaga nololeed marnaba yayna jaangoynin ducadaada waa inaad ka xubsiibataa wax kastoo negative ah, wax kasta oo kuu sheegaya waxaasi suurtagal maaha, sababtoo ah cidaad baryaysaa waa cidda suurtagalnimada laftarkeeda abuurtay ee arrinkeedu kun fayakuun uu yahay. fa markaad ilaahay la hadlaysid waa inaad ducadaada markaad wax kuula muuqdo mustaxiil intaad laabtaada ka soo saartid oo ereygaaga ka ugu mudanaad ku cabirtid inaad ilaahay ugu ladhidood ugu sadigtidood tiraahid lam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. ilaahayow horena ducooyinaan kuu weydiistay oo ku baryey kumaan hungoobin oo kumaan hooginta ha igu hoojinin, ilaahu ha igu hoojinin, ilaahayow ha igu hoojinin. arini cajaa'iba qudratik, ilaahow waxaad i tustaa yaabka awoodahaaga, igu tus arrintaas iyo waxa aan doonaya iyo khayrkoodii barakadoodu siday u xaqiiqsoomi lahaayeen oo noloshayda ka dhex arkaa, oo ficilkayga ka dhex arkaa, oo qalbigayga ka dhex arkaa, oy buriyaan oy meesha ka saaraan wax kastoo ii sheegaya inayna waxaasi suuragal ahayn, inaanay waxaasi suuragal ahayn. fa dhambaalkeenna ducada dhambaalkeenna waxa weeyaan lam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. waa erey iyo odhaah oo nebi zakariya yidhi walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. muxuu ku mutaystay yaa zakariya inaa nubashiruka biyaxyaa. iska daa wax kale, yani hibadiisa iyo wahaabnimadiisa ilaahi subxaana watacaala hataa ilmihuu siiyey isagaa magacii usoo bixiyey yaxyaa, samadaa laga soo bixiyey. subxaan allah, kolkuu ilaahay wax ku siinayo waxa uu yar buu kaa kafaala qaadanaya, wax walbuu kuu fududaynaya, wax walbuu kuu suuragelinaya. aduu inaad aamintaa uun, waa inaad ka xubsiibataa afkaarahaaga taban, wax kastoo maya kule waa inaad haada ilaahay dhagahaaga kusoo laalaabataa, awoodihiisu waa inaad indhahaaga saartaa oo laabtaada u sii daysaa oo niyadaada u sheegtaa waxaan hadduu ilaahay doono, ilaahay hadduu doono inaana cidna hor istaagi karayn, ilaahu ii doondhe, ilaahu idam sii shaygaas inuu ii dhaco ii suura galo sidan doonayo ii noqdo oo khayr iyo baraka iyo wanaagii ku dar. haddoo isla doonay laba adaan midi kaa durkayn, aniga iyo waxaan doonaya khayr iyo barakaan ka rabo in noloshayda bilaya hagaajinaya daacadaada iyo wanaagaaga iyo weynidaada igu dhaweynayaa, ilaahu isla kaaya doon. walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. ilaahay markaad ku bihinbihinayso eed baahiyahaaga u sheeganayso, fikrad kastooo tabanoo niyadaada kusoo dhacda waxaad ku baraxdaa lam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. ilaah qorana kugumaan hoogin, imikana kugu hoogi maayee iyeer sidaan doonayo. salaam.